السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان خيارتا سو dhawaada waa mar kale barnaamij kale iyo Kista TV barnaamijkan galabta hadduu alla idmo waxaan ku qaada dhigi doonaa laba qodob oo ku saabsan xagga soo galootiga kuwaas oo saameyn weyn ku yeelan kara dadka Soomaalida ah ee sharci doonka ah ee ku nool dalkan Mareykanka maalinku waa Axad waa 16 bisha August 2026 haddii aad nagu cusub tahay subscribe to the channel hadda hore noola joogtay like and share the video idinka mahadcelinaya sidoo kale Facebookeena follow dhac ku sii insha Allah haddii aan ku bilaabo qodobka koowaad oo ku saabsan arrimaha maxkamadaha iyo soo galootiga dalkan Mareykanka bariyaha kan waxaa soo baxay in maamulka madaxweyne Trump ay bilaabeen in ay dhageysiga kaysaska immigrationka iyo soo galootiga iyo dambi kaboodkaba quseeya ay u sameeyaan jamac waxaa lagu eedeynayaa in ay soo bilaabeen barnaamij ah in 100 case 200 oo case 300 oo case ku dhawaad maalinkii ay hor keenaan maxaakimyada qaabilsan xagga soo galootiga ee immigration judgeska xaakimyadan ayaa waxaa la sheegay in dadka intay leen dheer ay geliyaan dhibna ay ku noqon karto dadka gadaal jooga oo leenka ku jira hataa su'aalaha la weydiinayo waxa ay rabaan inay ka saaraan kaysaska faraha badan ee maxkamad sugayaalka ah inay bur iyo biyo u kala bixiyaan bay rabaan sida ay sheegeen waxaana maamulka lagu eedeynayaa in judgekiiba ay ku soo aadiyeen halkii maalin 200 oo case average ahaan judgeskaas ayaa waxaa la rabaa inay go'aan ka gaaraan dadkaas su'aalaha dadka ay weydiinayaanna waxaa ka koow ah lawyer ma leedahay su'aasha labaad oo la weydiinayo waxa waaye ma iska tegaysaa oo mise waxaad claim garaynaysaa asylum ama magangelyo doon su'aalahaas ay dadka weydiinayaan judgeka inkasta oo ay sida la sheegay room ama qol buuxa oo dad shacab ah oo sharci sugayaal ah oo maxkamad sugayaal ahaa ay su'aashaas ku dhex weydiinayaan dadka markiisna ay dhib ku tahay inay maqlaan su'aalaha hataa judgeka ama xaakimka uu weydiinayo arrimahan ayaa marka waxa ay rabaan in ay ku dhamaystiraan oo ku boobsiiyaan kaysaska faraha badan ee maxkamad sugayaalka ahaa in buri biyo loo kala saaro laakiin dhibaatadeeda ayay leedahay dadka badankiis waxa ay sida la sheegay ay claim garaynayaan asylum laakiin waxaa dhacday in maadaama kaysaska ay fara badan yihiin oo warqadahana lasoo wada diray ama ha lagu soo waco oo lawyerkaaga loo soo sheego ama text message ba kuu soo diraan ama accountkaaga ba ka aragtid in waxaa jiro dad fara badan ay maxkamaddii ay gafeen arrinkan awgiis marka maxkamadda haddaa gafto automatically sida automatic ah ayaa waxaa lagugu xukumayaa removal order dalka in lagaa saaro ayaa lagu qorayaa warqad ka saarid dalka ah oo ah inaad maxkamadda aagoysay tusaale ahaan nin bay soo qaateen naag lawyerada ka hadlaysay waxa ay sheegtay ninkaas in uu 5 jeer inuu maxkamadda uu gooyey ay u qoran tahay oo ay u qoran tahay markii lixaad uu helay notiiskii ahaa inuu maxkamadda ka soo hormooqdo markuu maxkamadda hor yimina hore ayay ka xireen waxaana ay u qoreen warqaddii ahayd dalka in laga saaro marka arrimahan noocana ayaa dhici kara dadka Soomaalida waxaan rabaa insha Allah tacaala inay ka feejignaadaan gaar ahaan kuwa cusub oo dambi kaboodka ah inay ka feejignaadaan arrinkan isaga ah oo maxkamadaha lawyerada si isku joogto ah ay ula xiriiraan si ay ula socdaan kayskooda meesha uu maraayo oo aad dhow aan lagugu soo dacweyn in aad maxkamad aad gambisay qodobkaas haddaan halkaas uga tago ku saabsan arrimaha maxkamadaha iyo soo galootiga waxaan eegi doonaa haddii ilaahay idmo warqaddii ama amarkii ka soo baxay judgekii deganaa stateka Massachusetts ee federaaliga ahaa Judge Borow gabadhaas ayaa waxay isku dayday in ay aad iyo aad Soomaalida u badbaadiso gaar ahaan kuwa ku jooga dalkan Mareykanka programka TPS-ka programkii isaga ahaa la noqoshadiisii kadib guushii uu ka gaaray madaxweyne Trump iyo xertiisa Supreme Courtiga maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanka go'aankii isaga ahaa ayaa gabadhii waxay tiri gacmaha ayuu iga xiray waan ka socon waayey marka waxaan hadda go'aansaday in kayska Soomaalidana faraha aan ka qaado oo waxaan ogolahay laga bilaabo saacadan waxaan ku raacsanahay bay tiri maamulka madaxweynaha in ay Soomaalida dalka laga tarxiili karo qof alla qofkii ku joogay Soomaali ahaa TPS programka marka TPS program hadda ku joogtay waxa ay sheegtay in Soomaalida la ogol yahay in hadda la tarxiili karo oo protection anymore aysan haysan haddii aan wax idinka taabto barnaamijkan TPS-ka
waa barnaamij kumeel gaar ah dalkaaga intuu ka hagaagayo in aad ku joogi karto oo aan lagu tarxiili karin iska shaqaysan karto aad iska deganaan karto dalkan haddaba dad fara badan oo ka yimid dalka haiti ayaa lagala laabtay gaar ahaan kuwa ku nool magaalada springfield ee ohio barnaamijkan marka hay-adda ice ayaa waxa ay bilowday in ay dadkaas iyaga ah ay u wada yeerto una soo xaadiriso in lagu xiro gps lugta looga xiraayo gps lugta looga xiraayo qof kasta loola socdo dhaqdhaqaaqiisa iyo meel kasta oo uu joogo marka dadkaas hayti ka imaaday oo dhan lugta ayaa laga wada xiray badankood xafiiska ayay wada imaanayeen oo looga yeerayay si aysan u baxsan meel kalena aysan u aadin programkii tps ka ahaana waa lagala laabtay marka soomaalida barnaamijkan in ay ku bilaabeen iyo in kale ma hubo laakiin hadda cid soomaaliya loo yeeray maadaama programkan uu soo baxay jimcihii hadda aan soo dhaafnay maantana axad ay tahay cid loo yeeray haddeer oo soo far lugta laga xirtay weli ma jiro laakiin anytime waxaad rajayn kartaan ama expect garayn kartaan haddii sida haiti ay nagu dhacdo in qofka lugta intii laga xirto lala sugo maxkamadiisa ama tarxiilkiisa dalka in laga saaro marka programka tps-ka dad waxaa jiro soomaaliya waxaa la siiyey 1991 ilaa 1991 dad ku joogaaba jiraba 35 sano ku dhowaad oo aan wax kalaba aan dalbanin maadaama sharciga weynaa loo diiday dalkoodina nabad uusan ahayn oo amni uusan ka jirin marka arrinkaa isaga ah jaajkii way ka hor leexatay sharcigaas kor iga yimi iyo cadaadis maamulka oga yimi iyo xeelilaalyaha guud ayaa waxa uu keenay bay tiri in aan faraha kala baxo soomaalida keyskeedana aan iska daayo keyskaasna marka wuxuu waddada u xaarayaa baa la yidhi in soomaalida la tarxiili karo tps-ka ku joogto wixii ka soo haray ama wixii joogaba dalka ku sugan marka waxa lugta laga xira weli ma maqal waxa hadda la tarxiilina weli ma maqal laakiin arrinkaas isagana waxaan rabay inaan idinka dabageeyo waa war cusub oo soo kordhay jimcihii hadda lasoo dhaafay intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii soo galootiga iyo jinsiyadaha dalkan maraykanka haddii aad nagu cusub tahay don't forget to subscribe hadduu video kusoo gaaro sii share gara insha allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh